asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. kusoo dhawaada janaalkan islaamik app. waxaan idin wadaa muuqaalo aad u xiiso badan. muuqaalkaas ku saabsan sidee loo jibiyaa gmail. inta aanan galin muuqaalkan ka hor subscribe adigoo taabanayo calaamada guduudan, furo gambaleelka si aan kusoo ogeysiino muuqaal kasta oo aan soo gelino. waxaad u baahan tahay OTG oo lacagtiisu yahay $2 ilaa $3, iyo waxa kale oo aad u baahan tahay flashkan. marka waxaan fiirinaynaa gmailka ku xiran taleefankan. next ayaan dhaynaa next, oo waxaan u kaadinaynaa gmailka. wuxuu leeyahay enter email verified your account uu leeyahay. marka wax kastoo aan gelino wuu diidayaa. hadda waan ka laabanayaa qadka ugu yara culus. hadda waan ku salaam next and next. marka wuxuuna weydiinayaa inaan gelino email. marka waxaan u baahannahay in aan meeshan ka saarno emailka. marka waxaan soo qaadanaynaa OTG-ga iyo flashka. horta OTG-ga ayaa waxaan gelinaynaa taleefanka, kadib flashka ayaan OTG gadaal ka gelinaynaa, kadib asig meeshan ayuuna keenayaa. oo waxaan u baahannahay inaan install dhahno appkan waxaan idin soo dhigayaa description-ka. haddii aadan haysan laptop, keliya linkiga ayaad taabanaysaa adigoo isticmaalayo taleefan kale. markaad linkiga taabato meeshan ayuu ku keenayaa, keliya waxaad taabanaysaa download. markuu kuu soo dego waxaad aadaysaa my file. markaad aado waxaad haddana taabanaysaa internal storage. linkiga meeshaad dhigatay ayaad raadinaysaa, kadib waxaad dhehaysaa hold, waad riixaysaa oo waxaad leedahay meeshan 3 dhibic ayaad taabanaysaa, move ama copy ayaad dhehaysaa. markaad intaas suubiso waxaad ku shubeysaa flashka iyo OTG-ga aan hadda idin sheegay ayaad ku shubeysaa, kadib dhan ayaad dhehaysaa. markaas kadib taleefanka kale ayaad gelinaysaa. marka unknown source ayaad taabanaysaa oo okay ayaad dhehaysaa, kadib install. waxaad dhehaysaa open. markaad opendaada hoos ayaad usoo daadegaysaa ilaa aad ka aragto backup and reset. kadib waxaad sii taabanaynaa factory data reset, kadib reset device, haddana delete all, kaasoo meesha ka saarayo gmailka. hadda waxaan dooranaynaa luuqadda Ingiliishka. next start ayaan dhaynaa, kadib escape. wuxuuna weydiinayaa wirelesska. escape ayaan iska dhaynaa, uma baahnin. next ayaan dhaynaa, calaamadda ayaan tig saaraynaa, kadib next, more, next, haddana next, oo escape ayaan iska dhaynaa, kadib next. escape ayaan iska dhahaynaa, finish
waa kaasa gmailkii sidaas ayaan ku jibinay.